بله كسر صاحب صاحب بله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. runtii farxad weyn ayay ii tahay caaw inaan ka soo qayb galo xafladda ciyaaraha Old Boys ka magaaladan Aarhus oo Oos ka dhacay runtii anigu dhowr sano waa lagu casuumay laakiin ma imaanin duruufo jira awgeed laakiin waxa igu casuumayay intaas oo ma aragtay Cabdullaahi Bayna Yuusuf oo ahaa saaxiibkay kooxdayni madbacadda qaranka runtii Cabdullaahi Bayna waxaan isla qaadanay waqti dheer xiliyadii barasamaadkii kooxdii gobolka Baydhabo markuu ciyaarayo gobolka Banaadir uu ciyaarayo halkaas isku barannay nasiib wanaag kooxdayda ayaaba nasiib u yeelatay inay soo qaadato maadaama nin difaac aad iyo aad u adag oo ahaa runtii waxaan ahay ninkii kooxda ku soo dhaweeyay madbacadda keligii uu ka yiqiin isagii Xasan Baydhabo wiliba safar badanna waa isla galnay xerada hotelka Saad Muqdisho taqaanaan ma aragtay iskuul ayaan haajir marka Cabdullaahi ma iloobi kar saaxiibkay ayuu ahaa walo meel badan ay soo marnay runtii haddaan usoo laabtay xafladda caawa aad iyo aad ugu faraxsanahay maxaa yeelay waa markii ugu horreysay aan imaado Aarhus ma is dhahayn Aarhus ayaa sidan ah haddaan ogahay inay sidan tahay waan imaan lahaa runtii maalmaha aan joognay waxa kale oo jirta in aan badadba arkaynin maxay meel koona ayaan joognay oo xeeb ah laakiin caawa waxaan aad ugu farxay markaan gabdhayn walaalayn quruxda badan markaan arkay dhalinyaro badan oo aad ugu faraxsanahay runtii magaaladan Aarhus waxaan ku arkay waxay tahay aniga runtii magaalada Muqdisho ma ku laabanin muddo 30 sano waana ogtihiin waxa nagu laabo inta badan maanta waxaan arkay markii halka la keenay markaan arkay xeebtaan badda iyo markaan arkay waxaan soo xasuustay xeebteeni liida ee weyneed runtii waxa ugu dambeysay bad aan arkaba muddo 30 sano ah Senegal iyo Gambia 2009 aan tagnay fasax iyo tagnay anagu Allah naxariis aniga saaxiibka daar gacmiga u taqaanaan kooxda Marishibiyo Landersar ayaan tagnay magaalada Banjul ee Gambia Senegal markaas ayaan bad arkayba marka bad xur aan u ahay caawa jooga baan arkay marka aad aan ugu faraxsanahay runtii waxaan kaloo aad ugu faraxsanahay inaan arko la jannadiina hore aan isla ciyaari jirnay kubadda cagta basketballka saaxiibkay Keenadiid Cabdi Daahir aad u taqaanaan kooxdii Batroolka midfielder aad u fiican Ali Barajab oo taqaanaan isku xafadnaan ahayn maartay degmada Shibis gobolka Banaadir kooxdii jay marka aad ugu faraxsanahay waxa kale oo jirta labaduba inay ka soo jeedaan qoys sporti Ali Barajab oo taqaanaan waa Barajab ayuu la dhashay markaan la waa Barajab oo laacib qaran oo maaragtay oo taqaanaan Soomaaliya qaranka wax u qabtay ilaa qaranka Soomaaliya wadamada badan wax macallin oo ah abihiis waa family sport waa ayaga dhan Keenadiid oo taqaanaan Bashiir Cabdaahir ayuu la dhashay oo taqaanaan macallinkii kooxda Inji oo aad u taqaanaan waxaa jirta gabar la jana oo la dhalatay Beela Cabdaahir oo gabdhiga qaranka wili gabdhi ugu cadcad kooxda Inji Sabalaareed marka muddo 30 sano markaan arkay waxa la Aarhus waxaad u baahan tihiin bamale mar haddaad haysataan Cabdullaahi Bayna haddaad sidaa Keenadiid haysataan Ali Baraj waxaad u baahateen male sportska oo dhan xoogoodii dhalinyarada freshka haysataan aad ugu faraxsan runtii magaaladan Aarhus waxaan ku sheegay ma aqaan laakiin waxaan ballan qaadayaa nafta been haddaan qabo inaanba ka baaqanin haddaan ogahay hadda ciil waxa waa arki jiray Maxamed Ismaaciil Balaag dhalinyarada asxaabteedii macu iyo sawirro galgala ii soo dirdiray laakiin maanta markaan indhayga ku arkay saddexda cisho maba rabi inaan banaan aado waxaan rabaa qaybta kaliina aado marka ciil aan u qabaa marka aad ugu maasantiin waliba ma taqaana badda inay tagtay la soo sheegaystid badda adigii badda sheegtaa waa qabowga xoogaa jir marka aad ugu faraxsanahay farxada weyn inaan ka soo qayb gal asxaabteedii dhalinyarada badan ee maaragtay sportiska qaar badan oo Ingiriiska nimid runtii waxaan rabaa halkan inaan mahad gaar u jeediyo TV-ga RTD oo mar walba garab taagan ciyaaraha Old Boys ka meel walba joogaan saaxiibkay maaragtay oo Xamid oo aad iyo meel badan aan ku arkay oo maaragtay diyaar u ah kooxda reer Djibouti walaalahayna wanaagay qabteen runtii markaan soo baxay kaligay ayaa soo baxay halka ka soo baxay maadaama aan ballan qaaday in bayna markaan airport waxaaba ku kulanay kooxdii Djibouti is wadataba markaan arkay bas waxaan meesha inay shidada meeshaas ba ka fahmay marka alxamdulillah aad ugu faraxsanahay hambali ayaan leeyahay kooxda Denmark maaragtay koobka ku guuleysatay mar labaad insha Allah taala insha Allah hadeen caafimaad qabna sanadka dambe waa imaanayna garabkiina ayaan taaganaa Bayna aqayaarta la soo qaban qaabisay aad aan ugu faraxsanahay maaragtay imaatinkeeda iyo casuumadooda runtii waxaan kaloo ku arkay meeshan ku sheekaysanay taariikhdiisa baan ka yaabay ee yiri 8 halkan soo galay ilka case oo awil ilka case sida ogtihiin cuntada oo noo sameeyay waxa
kaliya ma ahayna wuxuu ahaa legend basketballer kooxihii hore Soomaaliya Somali Tickets marka halkan ku arkay waabaya rag badan oo maaragtay aan isdheeyba maaragtay arkaysa ayaan arkay marka aad ugu faraxsanahay insha Allah ta'ala waa ku faraxsanahay wanaag waxaad ii qabateen wanaagin ma iloobi karo haddaan caafimaad qabana waa imaan doona insha Allah ta'ala salaamu calaykum bila aad ayuu mahadsan yahay marka fadlan adeerkay macallin diinaasha la soo dhaweeyey بسم الله الرحمن الرحيم وتبا إلهي مهدي سوكا يكين مسؤول مش سكون مادنو واحد كسو قرنا بإله بقرا هدي أنا كسو هالله هذا مطبعة وحتى شو ردك استاء أساسي في سويدن وخير بالواقع كجارني الحمد لله أنا جنا هدينا وطو ده نكون قوي بعد هم المشاور مرينا سيديتك كي بنكون سعداء خير يا عافمات بهرجينا يا waxaana ka qaaday oo ugu farshar banaan iloobeenin calankeena Soomaaliyeed anoo ciyaar ka qabanahaya maxaa Suriname ninka yaqaana walaati Brazil geeskeeda ah markaas calankii aqoon kari waayeen calankan waxa uu ka yimid Afrika waxay ka yaqaanaba Amharo Ethiopia ka yaqaaneen markaas waxaan tusay calankeena aan tusay inaan Soomaali aanu nahay geeska Afrikan aan ka taaganahay gumaysigan uu noo kala qaybsaday maxaa 5 qaybood noo kala qaybsaday sidaa daraadeed alxamdulillaah gabdhay markaa soo baxay laba gabdhood markaa ku dhashay muxuu ahaa wadanka ku dhashay ayaa awowgood wuxuu ahaa Soomaali buu ahaa gabadhii ooyeysa ay timid waxay tii wadanka kuma noolaan kari Soomaali igee Soomaaliya ka soo kaxeeyay waxaan keenay muxuu ahaa Muqdisho meesha la yiraahdo Kaamba Amharo ninka yaqaana oo ama liido taasa ku guuleystay alxamdulillah markii dibana walaalkii baan u guuriyay oo alxamdulillah caruur u dhashay billahi tawfiiq khayr baa idin rajeenaya ya afmaad adeer Axmed Dinaash caadi ma magaalada waxa kale oo la jooga Macow Xasan Xuseen Xasan ayaa la jooga Macow saako maqasheen madbacada qaranka Soomaaliya gobolka Banaadir Djibouti ayaa hadda wasiirka ka sokow ninkan passport horta ma siiyay Djibouti marruqaad Macow ma ahan ragga ka baqa hadalka sida intaan ku aqaano mini football ka sameeyay Djibouti Macow waa qofka kaliya ee live Facebook intuu soo galo Saturday iyo Sunday magaalada uu joogo ilma ku tababara waana qof sportiga aad u jecel waqti badan ku jire haddii qalad laga galana feerkiisa waa diyaar walaalkay Macow legend sharaf ay tahay ugu soo dhaweeyo bismillahir rahmanir rahim السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن دمان وحسلامة مرتشرفتا إن عيارتويدا قبلها إن وحكلو مهد علنا إن عبد الله بين يوسف هي إلك عسى هي عبد الله سدح ذا سنين أو مانتا هي الشلي هي الدراد ومارتي شقوين نوقبتي إن حافظه هني مركا كسو تغني قلت اليوم كان iyo wax kasto maaragtay noo diyaariyay jiif keen wax kasto waxaan leeyahay waa mahadsantiin in waxa kale oo u mahad celina kooxdii koobka naga qaaday in Denmark waxaan leeyahay hambal yaa leh in waxa kale oo u mahad celina in safka ka buuxsamay oo meel la fariisto la waayay in legend Kennedy naadiga batroolka uu dhilninkii yaqaano naadiga batroolka number 10 batroolka oo ahay ninka Muqtaar Cutub bedelo waxa kale jooga Ali Barajab asigana waa way maartay meedii haysta waxa kale jooga walaalahay ugu horeeyay Amash ciyaartoydii qaranka Djibouti waxa ku jira Saciid Dhaga waxa ku jira Gaasle Dhagaxle day kulay soo koobi kari waxa leeyahay shaqo fiican qabateen ama xarago ما شاء الله إن وحكلوا مرتي إن كعدسنا إن مرتي إن بينح وقت جيني واني وسو جاري قرون كلا سو قلد ما حدا
yaawe nin hadda igu da meesha kuma jiraa umaleyn waxaan rabaa sida xalay maaragtay nin xoogaa maaragtay intaa dhali ma dhali karaa beenax ya beenax Denmark dadka raadi walba lacay iyo Kennedy iyo imaadade marka waxaan leeyahay dream team iyo gaagaale ma sha Allah waxaan leeyahay maaragtay iyo Sodol ma sha Allah ayakan waxaan leenahay maaragtay soo dhawaada iyo dream team waa filan waa iyo afarta kalo kooxo maaragtay Denmark iyadana maaragtay laga sameeyay waxaan leenahay maaragtay soo dhawaada waxaan rabnaa cadaaladdan maaragtay ana anfacdo reer oos waxaa nagu sameeyeysa inaan naga daysiin cadaaladaan rabnaa anaka manihin maaragtay gaalo manihin dad cadna mana manihin soomaaliyaan nahay cadaaladdaana maaragtay ana anfacdo waxaan kaloo sheegaa nimanka kaleo maaragtay qabto dream team iyadana waxaan ka rabnaa cadaaladaan ka rabna markaan u tagno marka dadkan wada soomaaliyaan anaga magaca soomaaliya isla wadanaa manihin maaragtay reer hebel iyo reer hebel manihin kubadda waxay isku keentaa maaragtay bulshada oo dhan isku keentaa marka waxaan ilaahay maaragtay beenax shaqo fiican aa qabatay waanu ku garab taaganahay ma sha Allah wabillahi tawfiiq dad baa ila yaabay markaan ilahaa macow hadalka maliqo macow runtuu sheegaa cadaalad waa in laga shaqeeya waxaa kaloo aan rabnaa arrin waxaa jirta bahda isboortiga ay samayso oo Cabdilaahi Beynax runtii uu xooga saaray Soomaaliya anaga halkaan aan iska joognaa Europe iyo North America dadka bariis iyo shaah uma gooyo laakiin waxaa jira ciyaaryahanadii berisamaadkii oo wadanka ku dhibaataysan kuwa xataa Muqdisho iyo gobolada magaalooyinka waaweyn jooga waxba ma ahan dad waxaa jooga baadiye ku nool waxaa ka mid ah ciyaaryahankeeni Cabdisalaan Maxamed Baxnaani oo loo yaqaan Argentina oo runtii meel baadiye degan oo iska dhibaataysan sanadkii hore lacago badan ayaa la ururiyay marka asxaabta wax badan ayaan ururinay hadda intiina kale 10 wax weyn ay u sameysay qof baadiyaha oo Soomaali jooga runtii Cabdulaahi iyo reer Aws oo ku maasan yihiin insha Allah waana ururinay xoogaa ku shirno wadna waana soo gudbinayna insha Allah ma wuxuu sheegay ciyaaryahan ayaa jira meeshan oo naga mid ah oo halkan jooga ninkaas oo kubad ciyaaraya haddaad aragtaan aniga waxaan idhi Messi iyo Ronaldo oo la isku daray bal istaagaan ku aragnay asaas yaqaanay dhagax le ورجح الاستاك ولا جبيي ضد جبيي سي وسن بلد وقادن وانو كارجو سنينا قال هلسنكي ودنك فنلند وتيم ويل اورجنايزر قاب عياراتكم قالوا له marka sacabka balsi reer Helsinki oo safar dheer noo soo galay way ku guuleysay laba jeer koobka لاعب وين يلا صعدة مرنا كابتن يكديان مركله لاعب كاس بلد يكون جوليستا بلد يكون جوليستو ما هن فوتبول سرو والبا لبسكا فاشينكا هوليوود كا يلا سي يلا أنا صاحب حسام هاي مركان ربو فلورس بدن يقبل هلاقينا يسارن أساس اسكو سويرا بين حالنا وحان سو استاجينا وانا حشود بدن هاي عبد الفتاح عاوي عبد الفتاح لباتن يشدي سنة يوجرا لباتن يزيد يوجرا سنة كان بلاد وصوص عطا سولو كوح قطر قدوميهن وهذا دونا قدوميه هنا فنلند وحاتهين قبت سبورتيغا بل سولو تدك السلام وهورين سيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتين وسلامتين dhammaan martida iyo marti soorayaashaba salaanka baadi aad baan u faraxsanayn hortiina imaado aadna waxaan ugu mahad celinaynaa saaxiibkeen Beynax iyo dhammaan reer Denmark gaar ahaan Ows marka waxaan leeyahay aad iyo aad u mahadsantiin thank you safarada gawaarida
diyaaradaha Canada loo raaco hoteelada Sheraton kala dega nin baa noo qaabilsan oo maalqabeena caawintii la fadhiya ninkaas waa multimillionaire laakiin lama oga waa charitable man saaxiibkay ugaaska daahir xabiib madaxay ayaa soo dhaweynaya بسم الله الرحمن الرحيم aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb gala ciyaarahan oos oo ah maaragtay afar sano la dhigay sanadka horaan ka maqnaa oon Soomaaliya jiray saaxiibkay Cabdullaahi Beenax oo magaaladan maaragtay aad iskugu dabariday ciyaarahan maaragtay si fiican uga shaqeeya iyo dad badan oo xoogaa maaragtay ku midooba meeshan xalay aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galno ciyaaraha oosna waxay noqotay qaaradda Yurub maartay meelaha farta lagu taago ay noqotay waxaana sharaftaas kala dadka ku nool oo si sharafteed ku soo dhaweeyay laga bilaabo chefka ilaa iyo rag iyo dumarka ku nool magaaladan oo hogaaminaya maartay legend Beenax aad u maasantii soo dhaweynta soo dhaweysaan mar walba meeshan waxaa fadhiyay rag lajamada maartay legend football ninka ugu weyn maanta Yurub joogo Maxamed Ismaaciil Sitey waa fadhiya meeshan oo mar walba kasoo qayb galo si u support gareeya ciyaarahan bilaad joogo macoo joogo wasiirkeena maasha Allah galmudug marka aad u mahadsantiin si sharafta maarta noo soo dhaweysaan hoos hanolaato anaga walaalka kaliya aan leenahay waxaan waa reer Djibouti dadna jecel weligoodna jeclaa nala safan marka waxa la siyaasadda iska ilaaliyo laakiin reer Djibouti abaalkooda ma gudi karno waan ku sheegnaa mar walba ciidamadooda jooga wadankeena mar walba laga soo bilaabo carta ilaa iyo hadda waa la joogan marka reer Djibouti oo nooga yimid magaalada Northampton waa buurtada Ingiriiska way qofkii aan aqoonin ayay ka yimaadeen wasiirka isla socdaan marka waxaan soo dhaweynayaa RTD saaxiibkay Xamud soo dhaw saaxiib بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأني السلام يا خيارة خالقة عوا حفلة آد لو سواقة سيمي كسو غيب قاطتي وحنا آد وقف رحسن هاي محمد إسماعيل دوا إنكو قفكا إمك رونالدو يو آد وحلو يقارنا ميسي يو مركا محمد وأنكو مركا رجبو تكيس كسو صورا وحالكوا جبوتو جوغا دا وروانكا وانكي افتنيو روفيو نين ودق ميد يرتيقا ورجبو ما شاء الله ولي سومالي وقالي سناد وانكم وفرحسنا إن الله كلنا يرجع قالقا runtii mucu waa nin reer Djibouti qaali ku ah reer Soomaaliya qaali ku ah waa ninka quraata ee ku guuleystay inuu qurba jooga reer Djibouti wixii sport ku shaqo lahaa ninka gacanta nagu wad hayeen Djibouti oo dhan way ogtahay waa aabaha iyaga aad iyo aad baan uga dambeynaa aad iyo aad baan ugu faraxsanahay run ahaan Muqdisho marka laga hadlo anaku markaan daada yareen tujaartu ma tagi jirtay Muqdisho حسن قولت مرة تجي وقت جاء الله ونحرسته يسياد برا مركز أنا نقول رسالة لايف ده وارجنا لكن وحنا نقول شيء كنجري مقدشو حلا ده باركن حاجة سري ولي ده باركن حاجة سري قاعد ولا صادق مركز ضد بدن الرم مقدشو أنا برننا أد ونقول فرحسنا هاي مركز ودن كان يمناي مركز ضد كسل شيء كسرنا شومي ومن دينا شومي بند يا جيبوتي تم ده أد لو داود يو دينا شومي وكلا دقيسينه يا رموي مريحة مركز لكن إنك عندك كورنين أبو محمد هذا وعندي المدين مركا استعرض الرئيس جيبوتي قال لي وقت سوق لي هالكن كسوق يبقى دحقل كا ذهب كا الصوماليستان وجه شيء مالن يهبين مركا ملني ما نبا أنا كصومالي ودنا اللي جرته لأنه واحد كده كان تايد وجه عائلي محبوك يكل جعل زيادة جيبوتي نواساس وكلا وذوقتين ما أنت بانك وجوين لعقت وجوين الصومالية ده جيبوتي بتاعنا وأنا ودبر كده وماشي كتير سنكين يوحنا شيء يصير ووقت هره لكن رنتي بجيبوتي مركان نكستو قرب جوجا أو حيستا جيبوتي ما تني كأقول سرية رنت إني شجع أنا جمع على ودك تيجي البنك سلام البنك جيبوتي سجع على قبض الدم بيامي كوا بنك وقول قال السنة إيست أفريقيا صومالنا لا يد هيدا بقول كي بقول أديات بعد ما تسنتين ولا الله يدمان الله إني شرفني لا السلام عليكم thank you so much Sola thank you وما سنت هاي حامد ومركي يقول رئيسي أو thank you اللي يرهدو لكن أنا يسمى هذا علينا إياه قوبتن أما مهان وحنا لجوانين دكتورة من قيمة بدن هلسيكي كيميت هذا نجعلنا هاي كفتن بدن كفتن إقامة طلقة
doctor yaasiin gacmaha ha loo furo. أغياري السلام عليكم. وادي السلامي مرتضى شرفت له أغيارتان أنت أجدين وادد عانا أو البحة برسمات كبنوني ديلي جري رجعنا اسكو حافظنا هاي عاو مدحي يعني أقول سنة تجار مدحي بيسان وشيء جورجيسان وشيء الحمد لله وحن اسكو أرجعني ما أنت أنا جو بصارك جوجنا قبل ولا شيء هنا ونين جيل اللي يراهدو بلاك سي غير دقنا أي اسكو برنا نينا أنتوا تقول يرينه إنه كسلان ربنا ما دام قبل صوم على إيتا أيدي يابتي مركز سواري سنة واسكو صور لعنة هرتا ماشان بلد كان أوس اللي يراهدو بلد عجيب هواية نين كان اللي يراهدو محمد إسماعيل أو أحياريها وين إن شاء الله وحنا أوسي شيء أدفانس هدي أديلي جرت أنا هذا ما أنت جوجو بالإفيرسو قف كان قبتني هذا أيضا قلقلنيسو كذا عيانا له إلى أمر كيسوا إيتوست بوتد وإيتوست وحي كذا هذا وأوجدين ما شاء الله عيارتي سيدي أسعتي حوجا وحواي هدي أنا لشعترين حوجا ودميزة كده مقطع عاول إن عندك صوّد فيرنا يو وقطرتها كوحد جيبوتي وحليلة أيام فينال كأهد دقيقة دي كو هذا جول دليل nin saaxiibkeeyo oo dhagax la yiraahdo annaga reer xamarka dhagax waabis waay waa lagu waabinaa maantay ninkii dhagax ahay aan waxaan dhaaniyahow goolku waa dhashay arbitrihina waa dhacday wixii waa dhaceen ee saaxiibo ma ka qalaysid qaladu maxay ahayd uu dhax war si uu banoonigan u sii socdo horta wuxuu yiri cadaaladda oo ka hadlay ninkan la yiraahdo معو رحمر وعدالة واسكتغانا الحافظ وحمر بوقتها عدالة ولا مجرته لكن عدالة هذا جبوتي برويسو من كده حيوغيري هرت جول كإن داليني أو أنلين هاي سوماها أبوي هند هو فاهم وفهم لكن تجيجي ولا لكن حنا بنقول إنه السعودة تدرس حبيبنا ما لجوجاي هوش صوص ماهن على كل حال نينك دغخاي waa ku adkaystay waxa ogeedeen xal ka dhaxay goolkooda cadaaladda waa qaateen koobkina Copenhagen qaaday wallahi nin oo kiyaalo wateen oo xariifa mar oo shabaqa waa ma sha Allah qaranku u dheelaya la yiri qatar waa mar shabaqa la gaaray oo xoogaa shabaqa la aada dhankiisa waxaas dhahay koornadu waa baxday ninka waa dhaafa ma qasoo qoorta ugu qabto ma sha Allah shaafto oo 7 la dheelaayo waligay maarag laakiin hal iska baashaalo waxaan kaloo rabaa inaan caawa si sharaf leh oo macnaha qiimo leh aan u soo dhaweyno aan ugu mahad celino saaxiibkay Beenax Cabdullaahi ilka case reer Owso ka dhan wiil iyo walaal محن إلهي جبر يو أبايوين ما شاء الله وحن ربا أو كله إن أنجا شغنو وحن هاي دتك وجوه الرجال أو all boys سوبيا all boys كي أن سوبيناي والجونا جحي مال كستو سومالي وحجري جري قفك فرمشي مركي فرطو حلو حاج عيسى جري جرت مال كستا لقى فرعة هذا أوسي مروسا مال كندا هذا تقني سنة هانو لن إلا يا أفر سنة waxaan haysto gudoomiye insha Allah oo awliya markaan oo noo yimid koobabaan baqaadnabo dad la yaqaan sida Maxamed Ismaaciil iyo nama qabno oo qatara Kanadaan tagnay shaasha wuxuu yirnay oo 12 qofood tihiin ninkan oo idinka xukuumadan lama yaqaanay nin zeera aan ma jira san wax yeelna waxaan dhahnay Kanada in lagu barto aan u nimid ma ahane baashaal uma imaanin kooxdan qabana shanaan ku dhufanayna koobkan waa qaadnay 8 kooxood sanadka hore markaan dheelnay waa soo qatimaaya waxaan rabaa inaan arintan sheegano sida cadaaladda uu sheegtay sanadka hore waa dheelnay Jabuutiga waa legend kooxda Jabuutiga la yiraahdo oo uu hogaamiyo Master Dhagax waa six back hadda 7 qofood ku raacdin waa socdaan leeyahay ma sha Allah ilaahay u barakeeyo wuxuu culama qaanay
marka calaa kulli xaal sanadka hore saan u dheelayna nin dheer oo arbitra analoo keenay oo khatara maantana waa fadhiyaa ninka waa dheeryaha laakiin weligay arbitra covid gashan ma arag covid waxayba ka qarine xalay cajiibay ahayd goolka markuu dhalinayay facebook oo ku jiro goolka markuu dhalinayay weligaa maaragta arbitra la weydiiyo goolka gool miya haa muu jeedin insha allah jaa facebook ku jiro iska fahanteen maana sanadka si kasta u xarbinay waxaana la yiri 2 sano oo isku xigto ma qaadi kartiin sanadkan waa inaa koox u dhaaftaan sanadkan waxaan hayno dhan waa iska soo reebnay annagoo caadiyaan nimid isla reebkiiba ma dhaafin baynax faraxasig subag weelku daatay sida umagadbaade waa subax wanaagsan yaalkaan u daade in lagu seexdo ha seexan ilbaasida ha seexan in lagu seexdo ha seexdan ilbaexan ha seexan ha seexan ha seexan soo jeedo wimeenu wejina oo maalidii midow ho soomaalidii midowdo saalkii dhaayoodana ha seexan ha seexan ha seexan ha seexan soo jeedo wimeenu Soomaaliya Jabuuti saaca kuliina